wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa ku heshiiyay inay yeeshaan isbahaysi siyaasadeed oo saddex geesood ah kaas oo ay Soomaaliya ka faa'iideyso dib u dhiska ciidamada militariga Soomaaliya. Masar iyo Eritrea waxay hoosta ka xariiqeen inaysan wax gorgortan ah aysan ka geli doonin madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya, cid kasta oo ku soo xadgudubtana ay tallaabo wada jir ah ka qaadi doonaan. Talaadadii la soo dhaafay ayay dowladda Eritrea waxay Midowga Afrika u gudbisay codsi ku aadan ka mid noqoshada ciidanka nabad ilaalinta ah ee bedelaya kuwa AMISOM, waxayna Eritrea sheegtay inay heli doonto tiro ciidan in allaaliya intii loo baahdo. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo cirka isku sii shareerayo ismaandhaafka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii ay dowladda waddanka Itoobiya ay heshiis is-afgarad ah la gashay madaxweyne goboleedka Muuse Biixi Cabdi.